wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo maareeyaha madbacadda qaranka mudane Siciid Saalax Shire ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay dooxada Dagaar ee uu ka qabsoomay shirka Beelweynta Biciide waxaana wafdidan xubnihii soo dhaweynayay kamid ahaa salaadiin cuqaal iyo dhalinyaro tiro badan ugu horeyna waxaa madashaasi ka hadlay Suldaan Ismaaciil Nuur Wacay Suldaan Ibraahim Qoordheere iyo xubno kale oo tiro badan waxaana hadaladoodii kamid ahaa على سيدنا محمد مدشتن وحوي مدشي شركة بعيدة يونس أنقوش اللي إسماعيل نور وعيس كان هاي يو سلطان إبراهيم قوردير يو أرداقي بسمور وهل كان قوش اللي هل كان وحن كسر دوين سعيد صالح شير محمد maareeyaha madbacadda qaranka iyo waftiga la socda ku soo dhawow madashii aan uga shaqeynay maareey oo ah Dagaar marka waxa weeye waa shirkeena hadii alla yiraahdo wax furmaya wixii ilaa bari laga gaaro waa furmaya birkadiina adiga waxa tahay saddexaad laba ka dambeeya marka labadaas yimaadaan shirkii waa furmaya سيفي عنا ويال وانا شير نبتقليو وشير سياسة لهين وشير آية كتالسة مركا كسودو ودي يفتقاق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدة السلطان كوشيغي ومدشي قوغشا عن بقني دي هاي بيسا بعيدة بسنبور ودقار sida uu sheegayna maalmahanba waxa nagu soconayay waftiga ergadiisa baa nagu soconaysay sida uu sheegay suldaanku waxa weeye insha Allah taala berri wixii ka bilaabmay insha Allah shirki waa bilaabmi doonaa halkan hadda waxaanu ku soo dhaweynaynaa maareeyaha madbacadda qaranka Somaliland Siciid Saalax Shire waxaanu leenahay maareeya ku soo dhawow gogashii meeshii tolku dhigay ahayd gogosha Dagaarood baad ku soo dhawaanaysaa beeshaadii baad u timi gurigaagii baad joogtaa haddana waxa weeye hadal badan waxba ma gooye shirkii waa hirgalay waana maxaan ku idhaahday furmaya si sharaf iyo qiimo leh baa biciida uguna shiri doona uguna shawri doona ilaahay fadligiisa waxaana waliba kale aan sheegaynaa warooy shirkaas oo shir siyaasadeed ma dadka siyaasad ka daydayayo ورويها كوقدين وحبا ميسن ما يالين عندن بعيد أهينه وحلا وحكا دونتان إكلي يجرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوي يعني سمعنا غفارة ويسدوها تمرتي معناتها أهنا وحوي يعني قد دقا من قابضة ما رأي شركة صالح شرع رياض بعض قرانك ما رأي كسودوهم ما دام أنا قلنا هاي قد دقا من قابضة وحول بوا ديار شركي وحويان وحول بوا دميسترين يهين فليتفضل بان كلنا كسو دwow waxaan u mahadnaqayaa cid kasta waxaweyaan ergaa oo si sharaf leh ku timi oo iyo saxaafada ergadan way soo socotaa assalamu alaykum warahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal ridwan illa ala zalimin madashan waa madashii shirka Biciide weyne ee gogosha ay dhigtay beesha Basabuur Suldaan Ismaaciil Nuur Wacay iyo Suldaan Ibraahim Ismaaciil Suldaan Qoordheere waxaan ku soo dhaweynaynaa maareeyaha madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Siciid Saalax Shire waxaanu leenahay maareeyaha ku soo dhawow shirkan iyo beesha Basabuur horumarkeeda iyo waxqabadkeedana wuxuu ka qaatay qayb weyn oo libaaxi uu ka qaatay waxaanu madaxweynaha mustaqbalka soo socda waxaan ka codsanaynaa in loo ka dhigo wasiir insha Allah taala mustaqbalka waa nin karti iyo aqoon iyo waxqabad iyo cadaalad intaba ilaahay ku manaystay weeye waxaanu u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Xamuud Siilaanyo oo noo magacaabay Siciid Saalax Shire maareeyaha madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland nooga dhigay kaasoo wax badan ka bedelay beesha Basabuur ka soo jeedo wax badan ka bedelay horumarkeeda iyo waxqabadkeeda iyo safgaradkeeda iyo ka talinteedaba wax badan buu ka qabtay wuuna ka qaban doonaa insha Allah taala waxaan u rajaynaynaa wasiir buuxa oo mustaqbalka insha Allah taala inuu gaaro يا عارف عن يوم الدل يسكن إن شاء الله تعالى ونقرب تاجنا هاي والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان وحن كسر دوين إن مريم بعد قرنك
جمهورية الصوماليلاند سعيد صالح شري waxaan u leenahay maaraya soo dhawow waa taalka qaban qaabada aan wadnay oo kuwa salaadiintii taagan insha Allah wasiirnimada dambena waan naga ku hambalyeynay assalaamu calaykum waraxmatullaahi marka hore waxaan mahad u sugnaatay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta halkan isugu keenay marka labaadna waxaan mahad u sugnaatay beesha gogasha dhigtay ee Basanbuur aanu ka soo jeedo runaantii maanta shucuurteeda ma cabiri karo tolkay oo gogashii dhigay ayaa Ilaahay hargeysa uga soo kicitimay anoo la socday maxay timaariyay madbacada qaranka sida ay sheegeen marka hore waxaan mahadnaqayaa labada suldaan Ismaaciil Nuur Wacays iyo suldaan Qoor Dheere oo la'aantoodan shirkan socdeenba waan ugu hambalyeynaya marka labaadna waxaan mahadnaqayaa wasiirka ay beesha Basanbuur isku gaadhay inay maarey Siciid Saar Shire mustaqbalka dambe dheeraad assalaamu calaykum gabagabadiina waxaa halkaas mahadnaq ballaaran ka soo jeediyay maareeyaha madbacadda qaranka mudane Siciid Saalax Shire bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin salawaatullaahi wa salaamu calayh ugu horreyn ilaahay baa mahadleh ilaaha soo keenay baqcadan quruxda badan leh inoona nimceeyey quruxda iyo wanaagga intaa leegna inagu galladay ilaahaasa mahad u sugnaatay marka labaad waxaan u mahadnaqayaa waayeelka iyo waxgaradka ay ka kow yihiin salaadiinta beesha Basanbuur suldaan Ismaaciil iyo suldaan Ibraahim oo ku dhiiraday inay halkaas soo gigi banaana oo xilli adagoo abaareed ah ay ku ballan qaadeen inay gogol dhigaan ilaahay ay markaa kaashadeena oo ku asturay alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka labaad dhammaan waxaan mahadnaqayaa beelweynta biciide ee go'aansaday inay isugu yimaadaan goobtan kagana tashadaan ayahooda iyagoo wax siyaasada iyo wax xajiim aan jirin ee ka tashanaya ayahooda deegaankooda iyo mustaqbalkooda dhammaan waxaan u mahadnaqayaa beelweynta biciide waxaan ku soo bogaadinayaa oo aan leeyahay tafadal ku soo dhawaada shirkan iyo ay ka taliso marka labaad beesha Basanbuur ee aan ka mid ka ahay waxa saaran culays tiro badan oo ay isugu yeedheen biciide oo la garanayo inta meelooda kala joogaan iyagana waxaan leeyahay ilaahay inagu asturo horena inagu astur iminkana waxaan leeyahay inagu asturo dhammaan cuqaashan iyo salaadiintan soo dhaweysay igu karaamaysay gurigaygii mar labaadna iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan waa mahadsantihiin gurigaygii baan imi intaas iyo inka badanba idigama mutaysan waxa weeye nin gurigiisii yimi baan ahay aad baan ugu mahadnaqayaa suulaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa Mukhtaar Maxamed Diriye Mukhtaar Jambaq warbaahinta Sanaag Times magaalada Cerigabo